quraanka waxa uu ina barayaa ilaahay inuu yahay mid waxa kale oo uu ina barayaa in ilaahay isu muujiyay dadka isagoo isticmaalaya masiixa tanina waa qiso nololeedkii ciise oo laga soo xigtay injiilka quduuska ah maalmahaas oo Caesar Augustus boqorka ah Roma iyo Herodkiina markuu boqorka ah Yahuudiya ilaa waxa uu soo diray Malik Jibriil inuu booqdo bigrad joogtay magaaladii Nasaareed oo bigradda magaceedu waxa uu ahaa Maryam abaqin Maryanay waayo ihsaan baad ilaah ka heshay waad uureysan doontaa oo waxaad u muli doontaa wiil oo magaciisa waxaad u bixin doontaa ciise sida waxaan ku ahaan bikrad baan ahay nin weyn buu ahaan doonaa oo waxaa loogu yeeri doonaa wiilka ilaaha ugu sareeya boqortooyadiisuna weligeed ma idlaan doonto haddaba Maryam waxay u safartay magaalo ku taal Yahuudiya si ay u baqato inaabtideed Elizabeth taasoo si mucjiso ah u heshay ilmo Elizabeth Maryam naabti Maryam waxa taaytan dumarka oo dhan ugu barakaysan oo wax barakaysan ilmaha dali doonto waayo mar alla markaan maqlay salaanta ilmihii uurkayga ku jira farxad la boodbooda naftaydu waxay weynaysay rabbiga oo ruuxeygana wuxuu ku faraxay ilaahay badbaadiyeyga hadda kadib kurmaa oo dhan waxay ugu yeeri doonaan barakaysan ogaada dhammaan nimanka reer Nasaareedow in amarka awsur Kaysar awgii uu jiri doono tirakoob oo quseeya dhammaan dhulalka Galiile iyo Yahuudiya ragga oo dhan waa in ay iska diiwaan galiyaan magaalooyinka iyo caasimada ay awooyaashoodii hore ku dhasheen Maryam waxay aaday Bethlehem Yahuudiya si ay isku soo diiwaan galisay Yuusuf oo u doonay laakiin iyagu kama aysan helin Bethlehem meel ay ku degaan Afrika arbakada kaliya oo heli karaan ayaa ahayd xero xoolaad جرياها وودن كدينيسا idagooda ku dhaqaaleysay habeenkii markuu marga ilaa iyaga uu muuqday oo martabada ilaahna ay iyaga dul istintay maanta waxa magaalada Daawud ku dhashay badbaadiyeena masiixa rabbiga inta ma ayaa qabsaday si ay u soo arkaan ilmaha cusub oo qabaalka ku dhashay oo iyaga ayaa ugu horreeyay cid aragta oo way faafiyeen warka wanaagsan iyo dhalashada badbaadiyaha toddobaad kadib markii uu yimid waqtigii ilmaha la gudi lahaa waxaa loo baxshay magaca ciise oo yidhi Maryam waxay ilmaha geeyeen Yeruusaalem si ay rabbiga ugu gaarsiiyaan macbuudka dhexdiisa kasoo ruuxa ku balan qaaday inuu ilaa uu ka anfo ciise waxa uu ahaa imiga adoonka nabad ha ku tago sida ereygaaga oo indhahayguna waxay arkeen badbaadintaada ilmahan waxaad doortay ilaah oo labadiinuba barakaysnaada oo markay iyagu dhamaysteen dhammaan shaqooyinkoodii sida uu dhigayay sharciga Muuse waxay ka tageen Yeruusaalem oo ku laabteen Nasaareed markii ciise 12 jirka ahaa ayaa Yuusuf iyo Maryam u kaxeeyeen Yeruusaalem ciidii kormarida laakiin markii ay ku laabanayeen guriga iyagoo u maleynaya in uu la socdo ayaa ciise dib uga haray waxay ku laabteen magaaladii iyagoo isaga raadinaya oo maalintii saddexaad ayay ka heleen macbuudka isaga oo la fadhiya macallimiinta iyo odayaasha
ayaa ilmahan dhalay su'aalahan weydiinaya wuxuu ka yimid Nasrid waxaan u malaynay inuu anaga na raacay fadlan u cafi ku isaga maqlay waa yaabeen